laba shay weligaa ha ka quusan. maanta oo dhan waad hurudaa, yacni jiiftaa, quuro ayaana iskaga jirtaa. markaad dhimato ayaad soo baraarugi doontaa. hadda hurdo ayaa iskaga jirtaa oo markaad dhimato ayaad ogaa doontaa gaabiskaadii iyo in hurdadaadii in cibaado la'aan ay kugu rideen. maalin walba waxaad xaadiraysaa saaxiib duugtiisa. waxaa lagu moodaa inaan lagula doonin waxaad xaadirtay, yacni in janaasadaas oo kale lagu qaadi doonin oo qabrigaasta lagu dhiga lagaa soo tegi doonin ayaa lagu moodaa sidaad u mahadsan tahay oo aad u dhaqmayso. waxaad arkaysaa in saaxiibadaadii ay kaa sara mareen, ay gaareen horumar iyo guulo la taaban karo. istaag oo ku dhaqaaq rumeyntariyadaada. gaabisi dibdhac laguma gaaro waxaad dalbaysee. haddii aad maqashid moobilkaaga oo dhacaya, waxaa jira qof doonaya inuu kula soo xiriiro. haddii aad maqashid aadaanka salaada, ogow in rabbigaagu doonayo inaad la xiriirto. si aad u noqoto gacanta saraysa ee sadaqada la baxaysa ayaa ka khayr badan tan hooseysa dadka wax weydiisanaysa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waxaynu joognaa zaman aad u xun, goor ay dadku kugu nacayaan inaad wax weydiisato, laakiin rabbi subxaanahu watacaala wuu kugu jeclaadaa. dadka haddii aad wax weydiisato way kugu nacaan, laakiin rabbi subxaanahu watacaala haddii aad wax weydiiso weyso wuu kuu caroonayaa. laba shay weligaa ha ka quusan: naxariista allah iyo awoodda ducada. waxaan hubaa inay isbeddel kugu keeni doonaan haddii aad tijaabisay insha allah. adduunyadan aad joogno, in qalbigaaga allah subxaanahu watacaala aad ku xirto oo isaga keliya aad jeclaato wax dhama ma lahan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.